iskool bulshada joognaa oo maanta shacab badan aad u soo buuxdhaafiyeen shacabka ujeedaan ay joogaan waa maalin nasiino waa maalin jimco ah dadkana inta badan aad u soo buuxdhaafiyaan marka magaaladan soo marnay socod dheer kadib hadda waxaan soo gaarnay badiyaan soo gaarnay waa meel aad jawigeedu aad u macaan yahay weeyaan waa meelaha nimcooyinka ilaahay oo nagu manaysta ayayna ka mid tahay marka maalmaha jimcada oo kale marka shaqooyinka aad ka nasanaysaa waxaa loo baahan yahay inaad meelahan oo kale naftaad ku soo casuunto si markaasi jaamka iyo mashquulkii aad ku jirtay aad uga baxdo waraxmatullahi wabarakaatu youtube-ka naga daawanaysaan waa Yarisow official please walaal waxaan kaa codsanayaa inaad youtube-ka ku qorto Yarisow official kadib Yarisowgan kuu muuqda aad saarto subscribe waa codsi kadibna gambaleelka aad furato si fiidiyoodii ay ku soo gaaraan muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida mawduuca kore ku soo aragteen waa muuqaal xasaasi ah arintii shalay baraha bulshada wareegaysa amaba si kale hadaan u dhigno 24 saac ugu dambeeyay arinta Ayuuni Qura okay arintan wixii laga dhigi karo horaa looga dhahay laakiin ani waxaan rabaa labo qodob inaan ugu faa'iideysto qodob ah dumarka especially gabdhaha hadda ka caayo iyo sidoo kale ragga laga rabaa marka wiilka gabadha haddii ay jeceshahay kalsooni fara badan ay ku qabto wax walba way u diraysaa saan ognahay adiga ka rag ahaan maxaa kula gudboon marka gabadhaas oo sharafteeda iyo aamintay inaad xafido amaba haddii wixii aad aragto ay kula xumaadeen xumaan ay tahay inaad iska dallad gareyso yaani qofka waxa laga yaabaa bari inaad isku dhacdiin haddii qofka aad isku dhacdiinna aad muuqaa yani waxaad soo shaydaana yani ku dirdiri karo si shaydaanka uusan kaaga faa'iideysan marka waa ina waxa marka horeba iska dalidan tan kale gabdhaha hadda waxay tahay gabdho midaan adikana 10 ha idin noqoto sidee 10 ku noqonaysa okay maanta wiil aad yani xiriirida kala dhaxeeyo ninkaaga aan ahayn saaxiibtinimo kaliya jacayl ama xiriir oo ka dhaxeeyo wadafa wax walba oo ka dhaxeeyo ama muuqaal sharaftaada iyo dadnimadaada wax u dhimaaya u duubtay wiilkii u dirtay qofkan waa bini aadan isweydii biri qofkan wada joogaysa in kale ma ogtahay waa maya uu ka tagi kara waa bini aadan dadkan waxay dhahan bini aadan dad iyo dugaag wax kasta ka filo qofkan waa qof bini aadan ah wax walba oo sameyn kara Soomaan nafsi shaydaana ku xigo waxa laga yaabaa biri si simple ah xitaa haddii isagu uusan soo dhigin qof saaxiibayn inuu arko oo arintii uu qaato kadib meelaha uu ka sii fadeexayo way dhacdaa boqolaal jeer ay dhacday Soomaan marka waxa loo baahan yahay gabdhaha arintaas ayagana inay wax ka bartaan naafaco maxaa ku darsanaysaa way gabdhaha sharaftooda la ilaaliyo sharaftooda la ilaaliyo naafaco wuxuu leeyahay behind the camera way understand exactly waan dhalnay waan u dhixi doonaa anaga dadin galana laakiin waan u dhixi doonaa insha Allah haduu ilaahay raad waana dhali doonaa wara baad marka gabar ku dhashay aad qabtid for example aad dhali doonto kula dhalatay naaskeeda soo jaqday wayna ku sii fogaado halkaas ku soo gabagabeynaya